sheekada tani waa sheeko aad iyo aad u cabsi badan waxayna igu dhacday sanadkii markuu ahaa 2020 xilligaas oo aan Japan uga aaday fasax iyo waxaan ku dhahay inaan soo hawo bedesho anigu horta waxaan ahay qof jecel inuu buuraha dhaadheer koro marka maalin anoo buuraha korayo ayaa waxaan meesha isku baranay wiilka kan magaciisu yahay Horoshina waxa uu ahaa wiil da'deedu kala ah marka asiguna wuxuu jeclaa inuu buuraha koro meeshii ayaa waxaan ku noqonay asxaab aad iyo aad isugu wanaagsan muddo bil ah markii aan joogay ayaa waxaan go'aansaday inaan Soomaaliya isaga laabto laakiin diyaaradii ayaa markaa xayirnaayeen anuguna waxay soo food saaray walwal aad iyo aad u weyn wiilka saaxiibkay ayuu wuxuu igu qanciyay inaan gurigiisa u raaco intay xaaladdu si ka noqonayso anuguna markaa waxal kalamaan haynin waxaan ku yiri haye gurigii ayaan isku raacnay hooyadii ayaa waxay ii diyaarisay sariir aad iyo aad u qurux badan waxaana la degay wiilka saaxiibkay qolkiisa Horoshi cidiis horta waxay ahaayeen cid aad iyo aad wanaagsan waligay maba arag cid saa u fiican aroortii markii la gaarayna waxaan iska soo fadhiisanay qolka cuntada sidaan u quraacno laakiin si lama filaan ayaa albaabka waxa ka soo galay Horoshi aabihii oo wajigiisa ka muuqda murug iyo waxaan ku dhahay walwal aad iyo aad u badan waxaan isirtay ma ganacsigoodii ayaa wax ku dhacay Horoshi ayaa wuxuu yiri aabo maxaa kugu dhacay oo la murugsan tahay wiilkaygu ma xasuusataa keemihii la dhihi jiray oo Hoki Gahara haddana maanta qof kale ayaa laga helay anu ma garanay wiilkaygu oo kaymahan waxa ku dhex jiro iyo dadka sida ay u dhameeyaan wiilka saaxiibkay aabihiina intay sheekaysanayeen meesha waxaan u fadhiyay sida bombali oo kale waxaan isirtay maxay ka hadlayeen teeda kale maxay ahayd oo Hoki Gahara ma qaxwo shaax lagu darsadaa marka ayaa waxaan weydiiyay wiilka saaxiibkay oo Hoki Gahara waxay tahay waxaana igu yiri waa kayma aad iyo aad u cabsi badan yaa wixii aan kofiga mooday waxay noqdeen kayma aad iyo aad cabsi badan waxaan ku yiri haye bal ii wad maxaa ku jiro kaymaha anu horta wallahi ma garanayo laakiin dadka xaafadeena waxa ay sheegaan kaymaha inay yihiin kayma reer aakhiraadkii waxaan ku dhahay cirfiidka joogaan laakiin ma qasay ugu qaadan karaysaa saaxiibo inaa meesha aado adu hal saac ilaa iyo hal saac bar meel saawsi dheerna ma aha anu markaa waxaan ku fakiray bal ka waran hadii aan meesha soo fiiriyo oo waxa inay been yihiin iyo inay run yihiin aan soo ogaado wiilka saaxiibkay ayaa waxaan weydiiyay saaxiibo ka waran hadii aan meesha aadno waad ogtahay guriga 3 wiig ayaan iska fadhinay marka fadhi waxna ma taray ma soo haw bedeshan karnaa anu horta saaxiibo choice ka malihi waalidiinteeda ayaan weydiinaya marka ii fasaxaan waan fiirinaynaa waxa ay dhahaan kabaldhici ayaa waxaan isaga soo laabanay guriga ani wiilka saaxiibkay waalidiintiisa ayaa waxay noo diyaariyeen casho aad iyo aad u qurux badan anagoo meeshii fadhino ayaa Horoshi waxa uu weydiiyay aabihii inuu bixi karayo laakiin waa uu ka diiday waxa uu dhahay maya ma bixi karaysaan sidaan u bariyeynay Horoshi aabihii marka ayuu naga ogolaaday wuxuuna yiri sharuudan wataa waxay tahay inaad ciyo soo laabataan aroortiina baxdaan meesha waa meel qatar ah annagana waxaan ku niray haye aabo ma ku raagayno annagaaba ka naf jecel waagii markuu bariyay ani wiilka saaxiibkii waxaan isku soo diyaarinay safarkii maalintan aad iyo aad ayaan u faraxsaneen boorsooyinkeena ayaan soo xirxiranay muddo saacad markii aan soo soconay ayaa waxaan soo gaarnay tuulada guriga ugu dambeeyay marka Hoki Gaharana waxaaba nooga haray 30 daqiiqo kaliya gurigana waxaa fadhiyay oday cajuus ah oo aan daadiis ku qiyaas karayo 200 markaan agtiisa imaanayna gacanta ayuu iiga dhagay anu waan isku naxay markaas ayaan iri oday hawaayeelka maxaad iga rabtaa maxaad iigu dhagan tahay marka muusan ii jawaabeen kaliya waa uu soo eegay anuna waxaan sirtay mareer aakhiraad kala sheegay ayuu ka soo haray wiilka saaxiibkay oo yaaban ayaa ku yiri aboowe ma wax khaldan ayaa jiro wax cusub miyaa saaka aragtay odaygina Horoshi muusan eegay anu buu eegay maalintan waxaan sirtay ma ku qalan doonaa marka ayuu yiri kizuku kujisakiona anu ma Japaaniisan ku fahmaya markaas ayaan sirtay waad qurux badan tahay miyuu ka wadaa haddana wiilka saaxiibkay wajigii markii aan eegay waxa ka muuqday cabsi aad iyo aad u fara badan waxaan ogaaday inay wax cabsi badan ku hadlayaan gacantii ayaan iska fujiyay gadaal ayaan u sikaday Horoshi markaa shigshigayo ayaa yiri saaxiibkay amiin waan bixinayna keen anuna indha ayaa iga soo haray talo maxaa khaldan marka aniis wiilka saaxiibkay waxaan bilaabnay inaan safarkeeni dhameysano guriga odayga waa aan ka soo fogaanay waxa uu ku celcelinayay isla hadalkii Horoshi ayaan fiiriyay marka ayaa waxaan weydiiyay inuu ninka kan aqoon u leeyahay xoogaa ayuu aamusanay markaas ayuu yiri odaygan horta xaafad waxa looga yaqaanaa awoowe waxa awoowe loo dhahayna wax kale ma aha waa qofka ugu duqsan xaafadeena
waxay kale aaminsan yihiin inuu ninka kan sheegi karayo wixii soo socdo iyo wixii dhacay. Marka ayaa waxaan ku yiri iyo fasir bal wuxuu af Jabaaniiska haday inoogu sheegay. Hiroshi ayaa markaa yiri waxa uu ka wadaa iska ilaaliyo Kujisakiona. Anuuna markaa afkii ayaa juuqi gabay Kujisakiona iyo waxa uu ka hadlay maan fahmin. Hiroshi wajigii ayaa markaa iska eegay waxaana sugay inuu hadalka ii dhameystiro. markaasoo hadalkiisa wato ayuu wuxuu igu yiri Kujisakiona waa islaan aad iyo aad looga dambeeyo wadanka kan Japan. Jiilba jiilka kale ayuu uga sheekeeyaa. qof walbina sheeko ayuu ka aaminsan yahay. dadka qaar ayaa waxay dhahaan waxay ahayd islaan khiyaanoley ah markaa ninkeedii ayay khiyaantay. khiyaanaday ku samaysay awgeed ayuu wuxuu ciqaab uga dhigay inuu afka ka kala jaro. qolo kalena waxay aaminsan yihiin islaantan inuu cudur afkaga dhacay. qaliin markii lagu sameeyane afkeeda saas ayuu noqday. waxaana la sheegaa Kujisakiona markii aragtay afkeeda sidan u foolxumada badan waa ay u dul qaadan weyday markaana naftii ayay isdhaafisay. markay dhimatay ayaa waxay sheegaan dadka inay soo noolaato iyadoo reer aakhiraad ah oo wajiga ku wadato mara sida maaski oo kale ah. waxaana la sheegaa inay gacanta ku wadato mindi aad iyo aad u dheer oo waxaan ku dhahay afkeeda laga yaabay. waxayna soo baxdaa habeenka madow oo kaliya. qofkii iska hor yimaadaanna waxaan ku dhahay ma cafiso ilaa uu ka jawaabo su'aasheeda. waxay ku dhahaysaa ma qurux badanahay sida Kareena Kapoor oo kale? haa ayaad ku leedahay. markii intaad ku dhahdana waxay iska qaadaysaa marada xun ay wadato. foolxumadeeda markii ay aragtay inuu qofkii arkay ayaa haddana waxay weydiinaysaa isla su'aashii. haddii aad su'aasha uga jawaabto maya nafta ayuu ku dhaafinaysaa weligaa dambana laguma arki doono. laakiin haddii aad dhahdo haa waad ka ammaan helaysaa. Hiroshi markuu intaa ii sheegayna aad iyo aad ayaan isugu naxay. inkastoo ay sheeko xariir ahayd haddana waxay iila muuqatay sheeko xaqiiq ah. ugu dambeynna waxaan nimaanay keemihii intaasoo Brill iga soo sheekeynayay Hokigahara. Hiroshi ayaa markaa igu yiri saaxiibo waan inaan isku duubnaana maxaa yeelay keemahan aad iyo aad ayay u weyn yihiin. marka isma helayna haddaan kala dhunno. anuuna waxaan ku yiri haye adigu gadaashayda ha ka dhuuman. horta keemaha kan waxay ahaayeen keema aad iyo aad u cabsi badan. wixii laga sheekeynaya ayayba qabaan. waxaan ku dhahay keema intaasoo sano ayaan soo arkay laakiin kuwa ka xun maba arag. marka ayay su'aal maskaxdeedu ku soo dhacday. waxaan ku yiri Hiroshi haddii ay sheekada tani sheeko xariir tahay muxuu u dhahay ninkaad ku tilmaamaysaa awoowe iska ilaaliya islaanta. Hiroshina waxa uu bilaabay inuu dhinacyada fiiriyo asoo fikirayo. waxaana igu dhahay ma garanayo asoo weliba naxsan. wajigiisana waxaan ka dareemay inuu ninka kan wax iga qarinayo. in muddo ah markii aan dhex soconay keemaha ayaan aad iyo aad u daalnay waxaana iska fadhiisanay dhagax meesha yaalay. haraad xun ayaan hayay markaa biyo yar oo aan wadanay ayaan iska cabnay. Hiroshi ayaa markaa ku yiri ma jiraan qaabab kale oo looga badbaadi karayo islaantii afka dheereed. Hiroshi ayaa aad iyo aad igu qoslay markaas ayuu yiri ma sheeko xariir ah haddana ka baqaysaa. anuuna waxaan ku yiri maya kama baqaye kaliya waxaan rabaa inaad ii dhamaystirto sheekada tan. Hiroshi oo sheekadii wato ayaa igu yiri islaantan horta qaabab badan ayaa looga badbaadi karaa. qaabka ugu horeeyana waxay ahayd sidan kuu soo sheegay inaad uga jawaabto su'aalaheeda haa oo kaliya. qaabka kale aad uga badbaadi karaysaa waxay tahay inaad islaanta tan dusha kala dhacdo amaan oo aad dhahdo alla Kareena Kapoor iyo waxaan ku dhahay triishooyinka meelaad maalin marto habeen xitaa ma mar karayaan. inta isku mashquulsan tahayna waxaa laga rabaa inaad cagaha wax ka daydo oo aadan chance kala siinin ay kugu qabato islaanta. Hiroshi markuu saa iigu dhameeyay ayaa waxaan maqalnay shanqar ka soo yeeraysa dhanka iyo keemaha naga soo horjeeday. meeshii markii aan xoogaa eegnayna waxaan ku dhahay wax lagama arkeenin. geedaha ayaa ahaa geeda aad iyo aad u fara badan. haddana waxaan isniray talo ma shimbira. hadday shimbira ahaan lahayn qeyladooda ayaa la maqli lahay ma qofaa talo waxani. annagoo yaaban oo waxaan ku dhahay isfiirfiirinayno ayaa waxaan arkay wiilka Hiroshi oo aad iyo aad u cabsaday. waa uu naqayliyay. anuu markaas ayaan naf isgeliyay waxaan yiri yaa waaye ma qofaa meesha ku dhex jiro maxaa rabteen. wax noo jawaabayna maynan arag. markaas ayaa meesha waxaa ka soo baxday islaam waxaan ku dhahay foolxumadeeda laga yaabayo. indhaheedana aad iyo aad ayay u madmadoowaayeen. waxaad is leedahay talo islaantan ma seexata miyaa. wejigana waxay ku wadatay maask. anuu horta islaanta maaskeeda lamaan sii yaabin. waxaan is iri coronavirus ayaa soo batay saas ayay u wadataa maaska. waxay bilowday inay dhankeena u soo socoto. markii ay imaadayna waxayna weydiisay haye Kareena Kapoor ma u ekahay. yaa wadnihii ayaa bistaagi gaaray. Hiroshi ayaa markaa gacanteeda qabsaday wuxuuna yiri war soo carareey. anuuna markaa cagaha ayaa wax ka dayay anagoo meel kale eegaynin. markii aan xoogaa ka soo fogaanay naagtana waxaan u fiirinay gadaal mise waxay ahayd ayadii alla waa islaantii afka dheereed. waxayna bilowday inay aad iyo aad u qosasho. waxaan ku dhahay qosalaan weligiis hore loo arag. orod meel waa aan ku gaari weynay. markaas ayaan waxaan iska fadhiisanay meel waxaan ku dhahay waddo ah
waxaan isku soo baxay dadkeedii. waxayna moodayeen horta inaan nahay dad xanuunsan, waxayna na keeneen gurigeena. Aroortii ayaan soo kacay weliba anoo nabad qabo. laakiin wiilka saaxiibkii Hiroshi aad iyo aad ayuu xanuunsanaa, qandho waxaa haysan ku weligeed la arag. muddo wiiga markuu sariirta saarnaa Hiroshi ayuu soo nabad kacay. waxaan u nimaanay odaygii maalintii dhaweyd, waxaan u sheegnay arrintii. markaa ayuu wuxuu yiri anu ma garanayo waxaad aragteen, laakiin waxa laga yaabaa dad badan ayaa jira meesha ku nool oo ku qaraabtay islaanta wajigeeda. waxayna jecel yihiin inay ka cabsiyaan dadka u soo dalxiistaga keymahan. maalinta wixii ka dambeeyayna ani wiilka saaxiibkay waxaan ku dhahay keymaha agtooda ma inaan marin.